hooyada ayaa maskal baan haystaa waa la codaynaya ka baxdo waa la codaynaya hooyada ayaa maskal baan haystaa waa la codaynaya ka baxdo waa la codaynaya hooyada ayaa maskal baan haystaa waa la codaynaya ka baxdo waa la fadhigan uu gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa mudanayaashu inuu ixtiraamo golaha inuu ixtiraamo xiraasaadka oo ku dhaqmo xildhibaanada waa in lagu dhaqmaa xiraasaadka gudoomiye codkeli waxaan idiin sheegayaa hadduu golahu uu yeesho laba guddoomiye laba madaxweynena way jirayaan waddanka gudoomiye codkaad keenaysa waad codaynaysaa haddaad ka casaadiin ku jirtaa golahu waa fadhiyayaa waana la codaynayaa xildhibaanada kulmiye ma kici karaan anaa gudoomiye waa داود إلى سعد الكسان عزيز hooyada ayaa maskal baan haystaa waa la codaynaya ka baxdo waa la codaynaya cod baa la gelinaya waa la gelinaya waxidna fadhigu fadhiya داود إلى سعد الكسان عزيز hooyada ayaa maskal baan haystaa waa la codaynaya ka baxdo waa la codaynaya cod baa la gelinaya waa la gelinaya waxidna fadhigu fadhiya abadi gudoomiye kale tiilaanya maanta u galay inuu laaluush u soo qaybiyay xildhibaanadii golaha wakiilada waxaan u arkaa inuu qaranka burburinayaan u arkaa maanta wuxuu baashe maxamed faarax halkaa ka sameeyey ummadii waxay sharci ku tahay ay ummad ku tahay dawlad ku tahay kala dambayn weeyi sharci weeyi wuxuu ku tuntay sharcigii waxaan ognahay waxa la sameeyey waxa la boobayaa waa xoolihii ummadda ee gacantii barayfadkii ee laga qabtay ee ay ku faanayeen inta haamood ee hagaagay ee ay ku faanayeen siday u hagaajiyeen inay maanta dib u baabi'inayaan baanu u aragnaa kana yeeli mayno hantida ummadana waa la badbaadinayaa cirana maantu inuu madaxweyne u qalba muujiyo waad mahadsantahay laba arrin baa arrintaas way muujinaysaa dhacday arrinta koowaad waxay muujinaysaa maanta madaxweynaha rasmiga ah ee dalkani leeyahay ama uu yeeshay inuu yahay gudoomiyaha golaha wakiilada ah xisbiga mucaaradka gudoomiyihiisa waddanka sababtu waa maxay waxa uu badbaadinay oo mudanayaashu badbaadiyeen hantidii iyo haamihii shidaalka ee qaranka lahaa waxa xukuumaddu weerar ku soo qaaday iyo huwanta la socota ee shirkadaha xaaraan ku naaxa ah bedelaan xildhibaanada dadka madax codkooda
arrintaasi waa arrin fool xumaa gudoomiyaha golaha wakiilada uu ka dagaalamay waa arkayseen golaha wakiilada xeeroosaadku sidoo dhigaya dastuurku isaga golaha fura isaga ana xili kara aan lagu dhaqminna waxba jiri maayaan waxay arrintan muujinaysaa hore oo xukuumadda kulmiye shuruucda ugu tubatay maantana inay caddaysatay inay xeer dejintii koowaad dalka gacanta isu geliso oo gudoomiye ku-xigeenkii la yidhaahdo adoon gacanta saarin gudoomiyaha golaha wakiilada ma soo bixi kartid nacas la soo diray ayuu noqday waxaan leenahay jamhuuriyadda somaliland maanta madaxweynaheeda aanu aqoonsanahay waa gudoomiyaha